waagaag magacaagiisa waxaan ku bilow waxaad baratay waxaa ka hadlaysay muxuu ahaa caafimaadka TB-da iyo doorka ay ku leedahay qaabka u faafto iyo waxyaabaha keenay iyo TB-da meesha ay ku badan tahay iyo marka maadaama cilmi baaris aad ka samaysay cudurka TB-da iyo saameynta bulshada uu ku leeyahay magacaagiisa waxaan ku bilow cilmi baaristaadu meesha aad ka samaysay iyo waxyaabaha ka soo baxay waa mahadsan tahay magacaygu saddexaan waa Shamsu Xuseen Maxamuud maanta waa maalintayda waa maalintan difaaca buuggeeda Facebook-ga waxaan ka hadlayay ciwaankayga aan qaatay aan doortay aan diyaariyay wuxuu ahaa risk factor of infection tuberculosis of children saameynta TB-da ay ku leedahay caruurta ku nool degmada Warta Nabadda marka wax badan aan daraasaynay 4 bilood aan soo daraasaynay aan cilmi baaris ku jirnay waxaan noogu aan micnaha aan door bidnay aan baarnay degmada Warta Nabadda caruurta ku nool maadaama aysan lahayn isbitaalaad waaweyn oo ku yaalo degmada oo looga daaweeyay ama lagu keergareeyo caruurta TB-da ku dhacdo sidaas aan ugu kaliftay inaan Warta Nabadda ka sameyno daraasaadkan markii aan sameynay waxaan noo soo baxday caruur badan inay ku ildaran yihiin degmada Warta Nabadda TB-da waxaan sameynay caqabado badan waa kala kulanay xagga health workerska shaqaalaha isbitaalaadka joogo wada shaqeyn la'aan waa kala kulanay limitation kale aan la kulanay waxay ahayd costiga xoogaa xagga dhaqaalaha security ayagana xoogaa jam magaalada ka jiray wadooyinka iska xirxiran waxaas xoogaa caqabadahaas waa la kulanay waya ugu dambeyn cudurka TB-da runtii waa cudur wuxuu ka mid yahay cudurrada faafa sida fudud lagu kala qaado hawada lagu kala qaado marka maadaama baaris aad ku jirteen intaas aad wax baarayseen maxaa idinkaga soo baxay oo natiijo ah qaabka lagu hakin karo qaabka loo ciribtiri karo qaabka loo joojin karo yani maxaa se ugu fudud oo cudurkaasi loo qaabili kara dadkan looga daaweyn karaa dadka kan looga ilaalin karaa inuusan ku dhicin waan siin kala bixin waan sameynay dadka bukaanka ah ee la iltaran cudurka TB-da in loo sameeyo xarumo lagu micnaha ayagana lagu kaargareeyo dadkan aysan u gudbin karin xanuunka ee laga xareeyo marka dadkaasna ayagana bukaanka ah in daryeel loo sameeyo hawo fiican iyo meel fiican lagu xareeyo dadka caafimaadka qaba ee banaanka joogo saysan ugu gudbin cudurka maadaama uu faafayo cudurka okay waa mahadsantahay